السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa qays iyo raxmo ayaan ka salaamayaa. qaysow waan ku salaamay 14 iyo boqolka quraanka cadadiisan kugu salaamay. waan ku jecelnahay kal iyo laab ilaahay dartiisan ku jecelnahay. waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo aad iyo aad ku jecel. waxaan jecelahay qisooyinkaaga wanaagsan. waxaan jecelahay sida degan oo aad wax nooga dhaadhacsiisid. waxaan jecelnahay sida aad wiilasha dhalinyarada ah ama dhalinyarada gabdhaha ah aad u waanisid oo waalidkood iyo hooyooyinkood aad ugu waanisid oo u leedahay maanta waxa adduunka u nasiib badan ninkii hooyadiis ay joogto. waxaana u nasiib daran ninkii hooyadiis joogto oo aan ka faa'iideysan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka Qays iyo Raxma. waa walaalkeen Qays. subax wanaagsan walaalaha subax u tahay sida anigu oo kale. maalin wanaagsan inta maalin u tahay, habeen wanaagsan inta habeen u tahay. dhammaantiin walaalayaal waan idin salaamayaa. salaan kadib aad iyo aad baan ka xumahay. waxaad iga sugayseen update arrimaha ku saabsan qoyskeena ama muuqaalka aan duraad soo geliyey oo ku saabsanaa hanjabaad iyo caa iyo aflagaado loo geystay ehelkayga iyo aniga laftirkay. arrintaas inaan ka soo hadlay ahayd laga raalli ahaada. sababtaan uga soo hadli waayo arrintaasi maalinta muuqaalka soo geliyey saacado un kadib waxaana soo gaaray inaan soo ogaano silsilada meesha dhibaatadu ka socoto ama hanjabaad iyo caydu ka socoto. aan soo ogaanay mar haddii aan ogaanay dadka ay yihiin, mar haddii aan ogaanay waxay yihiin, waxaan garanay inaan ka daba kacin ama ka daba shidanin. muhiimadeennu waa intaas. horta meesha wax ka socdaan inaan ogaano, qofka maaragtay macluumaadkiisa nagu filan inaan helo, intaasa nagu filan. ujeedadeennu ma ahan inaan soo cayno ama aan usoo fariisano mar walba u jawaabno ama aan cayno, ma ahan. ujeedadeennu waxay ahayd inaan ogaano xaqiiqada qofku uu yahay. haddana waan ogaanay, waxaan go-aansanay inaan ka gaabsano. sidaas adinkana u ogaada insha allahu tacaalaa. laakiin waxaan idin leeyahay guuleysta. walaalaha noo soo duceeyey, naga damqaday, wallaahi aad iyo aad baan u dareemayaa kaamantiyadiina saad nooga welweleyseen. aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal. qof walbo oo dhibaato soo gaarto waxaan la talinayaa inuusan aamusin oo hadlo. qofku markuu dhibaato dareemo, dhibaato loo geysanayo dareemo, hadduu qarsado fududeysto oo qarsado, taas unbaa aakhirka maaragta laga yaabaa inay dhibaato weyn ku noqoto ayadoo cidna maqlinna dadka uun laga dhex waayo. haddii ay wax ku soo gaaraan oo aad hadli kartid, hadal. social mediaha ka hadal macnaheedu ma ahan eheladaada iyo qaraabadaada la hadal. dadka kuu soo dhow la wadaag. dhibaatadan ayaa haysato, dadkan ayaa dhibaateynayo, hebel iyo heblaaya ay dhibaateynayso. xataa haddii waxba laga qaban waayo ogeysii maalin maalmo ka mid ah haddii ay wax kugu dhacaan, dadkaas ayaa la raadsanaya. arrimaha annaga nagu socdo saan hore idiin sheegay, waxan waa wax iska joogto ah. laakiin hadda waxay noqotay in nafta qof bani aadana loo soo hanjabo ayay noqotay. taas ayaa naga hadashiisay. laakiin waxa kaamanta lagu soo qoro ama koolalkana lagu soo waco, fariimana loo soo diro, annaga weligeen kama soo hadlin, kamana soo hadli doono. sababtoo ah waan ognahay inaan ka gacan sarreyno. muuqaalada aan soo dhigno mar walba waa la manatargareeyaa, waana lala socdaa. qof walbana wuxuu halkaas ku soo qoro ama wuxuu ku hadlo waa lala socdaa. maalmo ka mid ah haddii aad dhibaato u geysato, dadkaasi nagu xiran qof ka mid ah, dadka way isyaqaaniin qaarkood. kaamanta ayuu qofku halkaas ku soo qoro, halkaasi ayaad ka soo raacee, dhibaataad u geysanay ama waxaad u soo qoray hanjabaad ama halkaasa ka raacee. waxaasoo dhan waynoo rikoorgaraysan yihiin, waana la soconna. ilaahayna waxaan ka baryaynaa shartooda inuu ilaahay naga qabto. dhammaantiin xaasidkiina iyo cadowgiina ilaahay ha idinka xijaabo, ilaahay ha idinka qabto. intaas ayaa raba inaan idinla wadaago walaalayaal. maanta uma baahna inaan idiin faahfaahiyo dadkaas waa hebel, dadkaas waa hebel, magacyadooda halkan ka sheego, qabiiladooda halkan ka sheego, looma baahno. laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ifahantiin oo aan halkaas uga haro arrintaasi. haddii ay wax kala soo kordhaan insha allahu tacaala waan idinla soo wadaagi doonaa. laakiin arrimaha aan ka adkaanay channelka Qays iyo Raxmo iyo asxaabteenna oo isku duuban ka guuleysanay inaan ka haro
ayaa wanaagsan. sidaas ayaan gartay, adinkana inaad ila fahantiin ayaa rajeynaya insha allahu tacaala. dhammaantiin inta noo soo duceysay, inta naga damqatay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, gaar ahaan asxaabta youtube oo runtii kasoo hadashay arrintaasi oo ay ka mid tahay maama safiyo, walaalkii daa-uud, iyo dhammaantiin waa mahadsantihiin walaalayaal. aad iyo aad baan idinka mahad celineynaa, mar labaad, mar saddexaad, mar afraad insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan ka salaamayaa qays iyo raxmo ayaan ka salaamayaa. qaysow waan ku salaamay 14 iyo boqolka qur-aanka cadadiisan kugu salaamay. waan ku jecelnahay kal iyo laab, ilaahay dartiisan kuu jecelnahay. waxaanahay hooyo soomaaliyeed oo aad iyo aad kuu jecel. waxaan jeclahay qisooyinkaaga wan wanaagsan. waxaan jeclahay sida degan oo aad wax nooga dhaadhacsiisid. waxaan jecelnahay sida aad wiilasha dhalinyarada ah ama dhalinyarada gabdhaha ah aad u waanisid, ood waalidkood iyo hooyooyinkood aad ugu waanisid, ood u leedahay maanta waxaa adduunka u nasiib badan ninkii hooyadiis ay joogto. waxaana u nasiib daran ninkii hooyadiis joogto oo aan ka faa'iidaysanin, ama aabihiis uu joogo oo aan ka faa'iidaysanin faa'iidadaas qaaliga ah. dhaldhalaalka adduunka yuusan ku qaadin. ha is oranin adduunkan aad maanta ku nooshahay waad ku waareysaa. waa laga tagayaa adduunkan, xisaab ayaa imaanayso, waalidkaaga ayaa wax lagaa weydiin doonaa. hooyo waa kuu duceynay 14 boqolka qur-aanka cadadiisana waan kugu salaanay. owlaadaada allah kuu xafido, xaaskaaga allah kuu xafido, ehelkaaga allah kuu xafido, allaha ku xafido, allaha ku xafido. xilli xunaa la joogaa. maalin dhaweyta markaad soo masawirtoo tiradada ay ugu haysto qisooyinka ood bistoolada soo masawirtay, waa aad iyo aad sidaan uga naxay, ilaah baa og. waan kuu duceynay 14 boqolka. horay u soco, gadaal ha u laabanin. maasha allah, ishana allah kaa xijaabo. sida aan kuu jecelnahay ilaahay iyo malaa'igiisana ha kuu jeclaadaan. maasha allah, tabaarakallah. owlaada allah kuu barakeeyo, irsaaqada allah kuu barakeeyo, caafimaadka allah kuu barakeeyo, cimriga allah kuu barakeeyo. horay u socod. qayso waa kuu duceyna diyaaru noqo. hoyow ducadeyda weligeed ma marin daleen. dabaysha ma raacdo way dabaalataa. sidii subag meel ku daatay usoo duxdaa. sidii daruur ahaa cirkay soo daruurataa. laguma gaajooda gurigaada gu-iyadeen. oo qaysoo gurigaada galigaba guri qabow. owlaad barakaysan iyo irsaaqad waasic allaha kugu bashiro. waan xabeebsanahay, waan hargebsanahay, waan ku salaamay wiilkaygiiow. hooyo ku jecelaanahay, guuleyso, ilaahay dartiisan ku jeclahay. waxaan jeclahay wiilasha soomaaliyeed adiga iyo kuwa lamid ah inay noqdaan. maasha allah, tabaarakallah. laguma cuno oo laguma coorsho, cimrigaadana baraka allah ku dheeho. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.